فلا يدن يا عسيو بجاج بالغ سليديو بجاج بالغ سليديو كاركو دقانكي برشينو فيسبوك بالو بحصدي wadan waliba waxa uu leeyahay sharci ama qaanuun u degsan oo ay ku wada dhaqmaan shacabka iyo dawladii dhexe ee Soomaaliya markii ay burburtay waxa meesha ka baxay sharciyo dhowr ah oo ay ku wada dhaqmi jireen bulshada Soomaaliyeed waxaana qayb weyn ka ah waxyaabahaasi la waayay sharcigii darawalada ay ku dhaqmi lahaayeen wadooyinka ku yaala magaalada Muqdisho intooda badan waxay ku burbureen dagaaladii sukeeye ee dalka soo maray balse sanadihii dambe waxa lagu guuleystay in la dhiso qaar kamid ah wadooyinka ku yaala magaalada Muqdisho kuwaasoo la sheegay in ay yihiin kuwa maristooda shacabka halboolo ah waxaana dhismahaasi gacan weyn ka geystay dawlado xiriir dawlo leh dawladda Soomaaliya iyo waliba shacabka Soomaaliyeed oo iyagu isxilqaamay isla markaana canshuurtii laga soo aruuriyay lagu dhisay wadooyinka qaar kamid ah wadooyinka la dhisay waxa laga mamnuucay marista bajaajka waxaana wadooyinkaasi kamid ah wadada hormarta madaxtooyada ilaa laga gaaro Xabataako iyo wadada aado dhanka Eelaboorka iyo waliba kuwa kale darawalada qaar ee wada bajaajka ayaa waxay maraan wadooyin qardajeex ah kuwaasoo ku yaalo xaafadaha waxayna ku socdaan xawaaro aad u xoogan markaad marayso wadooyinka ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxa indhahaagu qabanayaan dhugdhugley aad u badan oo iyadoo dhan ka wada siman in ay si xooli ah ku socdaan waxaaba taasi u dheer in kaalimaha suugaanta oo si aad loo dheereeyay ee ka daaran tahay mooto kasta ama bajaaj waliba habeenkii markay tahay xilli dambe ama saqda dhexe ayaa waxa dhagaha bulshada Soomaaliyeed ku soo dhacaya guuxa ama dhawaqa bajaajka ama dhugdhugleyda oo ay saaran yihiin dhalinyaro kuwaasoo ay u daaran yihiin kaalimaha suugaanta dhugdhugleyda ayaa waxay dalkeena Soomaaliya soo gaartay inteeda badan sanadihii 2012 ilaa 2013 inkastoo dawladii dhexe waqtigeedii la isticmaali jiray waxaana la sheegay in ay dabooshay shaqo la'aantii heesay qaar kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana waxaa la sheegay in dhalinyarada wada bajaajka aysan haysan tababar darawalnimo ee ku filan waa kan Xasan Cali Maxamed oo kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho isla markaana bartay sida loo wada bajaajka oo ka hadlayo waxyaabaha ay u baahan yihiin darawalada kaxeysa bajaajka iyo in ay haystaan tababar ku filan bismillaahir rahmaanir rahiim Xasan Cali Maxamed anoo kamid ah darawaliinta bajaajka aan ma tababar ma haysano sidii xaqiiqda danka wadno maadaama aanan ma aatay anay darawal bajaajka kamid ah hadda wax la sheekar oo xaqiiq oo ma jiraan oo maaragtay sharci ama tababar aan haysano malaha ma jirto gobol tababar oo hadda si sharciysan ama si nidaamsan sidii hadda baabuurta amal ma jiraan ilaa ay keen qofka maartay maalinko ama laba maalmo wax la tusaya ka bacda bajaajka loo dhiyaa si wado ku fuulaya isoo iska xisan isoo waxba kala aqoon maartay oo hatta wado dhankii laga isticmaalay dhanka saxan iyo dhanka maartay qaldan isoo kala qayn loo jira asoo u dhaxgalaya baabuurta si loo dhaxgalaya darawalada kaxis bajaajka waxa uu baahay inay ma aragtay si nidaamsan ama ay soo maraan maartay si baabuurta ama isku drive inay soo maraan ama darawalada toos ay soo maraan ka bacdi bajaajka loo soo dhiibo oo soo soo ay ku soo gaaraan waxa kale uu sii baaqlay maartay dhalinyarta maartay bajaajka ku wareerisay dadka maartay wadooyinka maray inay eegan ka yareeyaan dhanka kale waa kuwana qaar kamid ah bulshada reer Muqdisho oo nala wadaagayo fikirkooda ku aadan bajaajka sida xooliga loo wado taasi oo ay ka daaran tahay kaalimaha suugaanta sida ay u arkaan iyo waliba saameynta ay ku leedahay anigoo ah Warsame Axmed Cabdi Warsame Alto waxaan ka cabanaynaa haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed anoo ku hadlaya magaca bulshada Soomaaliyeed bajaajta oo ku soo badanaysa magaalada Muqdisho maalinta ka dambaysa taasoo la timid dhaqan ka gedisan dhaqanadii Soomaalida
tan waxay soo siyaadisay maaragtay stuudiyo inuu laamiga marayo oo maaragtay heesii hawada lagu dhajinayo qofkii ganacsiga oo dhageysanayo qofkii beelka oo dhageysanayo kii rakaabka ah oo dhageysanayo kii bajaajta wada oo dhageysanayo cabashadana koobaad iyo cabashadana labaadba waxaan ka cabanaynaa oo aad aan uga cabanaynaa bajaajta magaalada muqdisho ku soo badanaysa qofku inuu maaragtay oo hees intuu daaro waliba kaligiis uusan dhageysanayn hawada uu ku dhajinayo oo dadkii oo dhan ay dhageysanayaan laamiga laga dhageysanayo qofkii ganacsadaha ah oo dhageysanayo arintaas way arinta koobaad oo anaga aan ka cabanayna magacaygu waa Cabdishakuur Cabdullaahi waxaan ka cabanaynaa oo cabasho aad iyo aad u badan ka soo jeedinaynaa anoo ku hadlaya magaca shacabiyada ama bulshooyinka Soomaaliyeed dhibaatooyinka ay inoo keentay inoo soo kordhisay bajaajta magaalada Muqdisho dhibaatooyinkaas hadaan mid ka mid ah waxaa ka mid ah bajaajta ay ka daaran tahay kaalimaha suugaanta ama waxa u naqaano heesaha kuwaasoo ah marka dhibaatooyinka ay geysteen waxaa ka mid ah in qofkii imaamka ahaa waxta markay soo marto masjid agtiisa iyadoo salaada lagu jiro inay qofkii imaamka ahaa iyo dadkii uu tujinaya xataa ismaqli waayaan heestaas qayladeeda darteed dad badan ay suwaas u geysato marka aad iyo aad waxaan u cambaareynaa oo aad iyo aad uga cabanaynaa darawliinta bajaajta iyo qaabka xumada ay u dhaqmayaan waxaan jeclaan lahayn inay ku bedelaan waxyaabo ka wanaagsan waxyaabahaas hadda ay sameynayaan sida khayraad iyo diini iyo wacdi si ay ayagana bari ajir u noqoto shacbiyada kalena uga faa'iideysato Cabdiraxmaan Aadan Barow oo ah gudoomiyaha bajaajleyda ayaa qabo dhankiisa fikirka ah in arintani ay tahay anshax xumo taasina ay keeni karto mas'uuliyad daro sababi karta in ay shil ku galaan taas waa anshax daro waay ninka mootada mikrafoon ku xiro oo warbaahin ku xiro oo dadkii dhaga u wajiriyo oo waa maaragtay ama meel dariiqa ku deysho ay baabuurta ku xirmaan ama baawur oo rabay inuu midig ka baaro oo bidix ka baaro baawurka soo jaro oo ku dhaco ama si kaliya intuu leeyahay ay gadoonto oo meelaha saddex lugooda waqti hore ay ku soo gadoonto dadku waa ku jirayaan waa dhibaato marka laga soo tago waxyaabahaasi aan kor ku soo xusay ayaa haddana waxaa jira in bajaaj ay saaran yihiin dhalinyaro in xilliga habeenkii lagu dhaco shacabka Soomaaliyeed kuwaasoo laga dhaco waxyaabo badan oo ay wataan sida moobeelada lacagaha iyo waliba waxyaabo kale oo aad u badan qormada warbixintan ayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa darawallada kaxeysa bajaajka suugaanta madaawo bay moodeen mise waa daandaasi shacab